dhawaana yahayd markii magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer lagu qabtay shirkii walaaleeye oo lagu heshiisiinayay labadii beelood ee walaalaha ay diruurtu ku dhexmartay deegaanka Cali Saahid ee hawlka gobolka Togdheer. Shirkaasi oo lagu doortay 10 xubnood oo ka shaqeyn doona midnimada iyo wadajirka labada beelood ee diruurtu ku dhexmartay deegaanka Cali Saahid ee hawlka gobolka Togdheer. Haddaba gudoomiyaha tuulada Belibeegsi Odaysi Kaawe ayaa tuuladaasi casuumaad ugu sameeyay 10kii xubnood ee shirkaasi lagu doortay iyo 11 tuulo oo ka mid ah tuulooyinka ay saameysay dirirtaasi, waxaana gebi ahaanba la qaatay in la ilaaliyo midnimada wadajirka iyo danta dadka iyo dalkaba. Munaasabadaasi ayaa waxaa ka soo qayb galay taliye ku-xigeenka qaybta booliska ee gobolka Togdheer, barashaab ku-xigeenka gobolka Togdheer, odayaal, salaadiin, cuqaal, waxaanay dhammaantoodba u mahad celiyeen gudoomiyaha tuulada Belibeegsi Odaysi Kaawe oo munaasabada iyo casuumaadaasi u sameeyay 11 tuulo ee dirirtaasi saameysay iyo 10 xubnood ee la doortay. madaxdii kala duwaneed halkaasi ka hadashayna waxaa hadalladoodii ka mid ahaa sidatan. waxaan leeyahay saamaxnaakum wax kasta aynu isu tirsanaynay, wax kasta aynu isnay saamaxnaakum waa daantaana daata qaado shalay dhalay baynu ka bilaabayna. waxaan leeyahay waar maanta laga bilaabo dad isku mid ah oo walaalaa oo wada degan oo deegaanka wadale oo daaqa wadale oo biyaha wadale oo dhulka wadale baynu nahay. aad iyo aad waxaan ugu mahadnaqaynaa ninkan odayga ah ee aanu degmadii aanu tuuladiisii lagu macsuumay guddidiina badaynta 10ka ahayd. aad baanu ugu shukrinaqaynaa ninka ilaahay baa mahadle. waxaan hadalka kaga tegaya waan gaabinaya, waa goor gaaban. waxaan leeyahay allaha idin barakeeyo ciddii aanu isu keennayay, ciddii nabadan horena nooga qaadatay maantana naga qaadatay, ilaahay waxaanu idinka baryaynaa calooshiinna iyo afkeydna ilaahay inuu mideeyo, annagana mideeyo. annagu 9 bilood hawsha la waday raggii ku tabcadow suldaan guud haddaad tahay, haddaad dowladda dhexe tahay, wuxuun baa nala shaqeeya gobolka Burco iyo wixii jooga ama ciidan ka ahaato ama gobolka ha ahaatee. cid dambe maanaan arag, dhaliil bay leedahay. waxaanu leenahay tacabka lama xumeeyo, gacanta midigta way noo soconaysaa hawshaasi, waanu sii wadaynaa. gabagaba maaha tani, 2 wiigba mar baanu cid jirinaa, mar habeenna meel uma hoyano. niman raranoo ilaahay u raran baanu nahay, dadkooda u raran. marka hore in badan baa nabad la sharxay, laydiin sheegay, laydinka waaniyey. ha u qaadanina in la leeyahay laysma dili doono, balaayana ma dhici doonto. war wax way dhici jireen waanay dhici doonaan, iminkana waxbaa taagane. ciddii maalintaa ilaahay dhigayay caqliga saliimka ah ee aad wax ku wanaajin lahayd ha lagaa helo. laakiin maalinta falinagu yimaadaba haddaynu noqonno sida qoom ilaahay iminka abuuradoo aan meelay ka bilaabaan iyo meelay kaga hagaagaan ayn garanayn yaynaan noqonin. waxaan leeyahay wax way dhici jireen waana dhici doonaane, caqligu ha shaqeeyo sidii wanaagsan loo xalili lahaa ha falowgeeda ha la qabto. mar labaad waxaan leeyahay gudoomiyayaasha tuulooyinka ama hayrtuulayaasha iyo ciddii la mid ahay deegaanka aad madaxda ka tahay, aakhirana waa lagu weydiin doonaa, adduunkana waa lagu weydiin doonaa. annana ma sahlin inuu cuqaal baanu nahayoo cid waliba cidday mas-uulka ka tahay waa la weydiin doonaaye. balaaran oo ay soo qabanqaabiyeen guddidii 10ka ahayd ee nabadda ee beelaha aadna uga qabtay Sikaawi oo gogosha dhigay. dad badan baan isugu keenay, dadkaasoo nabaddu ka muuqato, wanaaggu ka muuqdo, walaalnimadu ka muuqato ayaa isugu yimi. mar walbana waxaa fiican in la derdergeliyo shirarka nabadda, maadaama annagu aan u xil saarayn. wuxuu bay ka mid ahay howl maalmeedkayagii iyo derdergelinteedii nabadda ayuu bay ka mid ahayd, waana sii wadi doonaa. aad iyo aad waxaan ugu mahad celinayaa anigu ama guddideeda haddaan nahay taliyaha qaybta booliska oo wakiilkiisa nala joogo Khadar, iyo gudoomiyaha gobolka Togdheer oo nala shaqeeya, maayarka oo hawlo badan nala qabtay. dhammaantood waa hawsha ay xul saaraayeen. laakiin waxaanu tabanaa haddaan nahay odayaasha hawl fara badan oo ganacsatadii iyo dowladda baanu ka tabayno dhexe. waxaanu leenahay annagu waanu wadaynaa, mutadawca baanu ku wadnaa, ilaahay baanu ka baryaynaa inuu jisaayigeeda na siiyo. dhammaanteen cid kastoo ka soo qayb gashayna waanu mahad celinaynaa. waxaan halkan maanta ku qabannay shirkii nabadda haddaanu nahay
guddidii nabadda loo diray ee ahayd 10ka ee labada beelood waxaanu soo qabanay hawl fara badan hawsha fara badan aan soo qabanay maanta waxaanu soo nabadaynay intii ugu dambeysay 12 tuulo oo degmadan ugu soo dambeysay inta ugu soo dhawaan dambiyada ugu dambeeyaan ilaa iyo eega ilaa iyo meesha la yiraahdo muxuu ahaa isku dhoon inta ayaanu shirkan u qabanay laba eray baan halkan ka sii odhanayaa labada erayaan ka sii odhanaya waxa weeye mid waxaan aad ugu mahadnaqaynaa oo aanu sheegaynaa ninka iyo magaaladiisa waxaa ninka la yiraahdo anigu Sikaawi waa la wada garanayaa Ismaaciil iska daayo lama garanayo Ismaaciil waxa la garanayaa Sikaawi oo balligan la yiraahdo balli beegsi maanta ku qabtay shir qaran oo aanu isugu nimi guddidayadii 12ka tuulo maxaan ku yiraahdaa bada saabkii magaalada iyo taliya qaybeedkii magaalada Burco waxa weeyaan markii la leeyahay labada taliya ku xigeen markii halkan iyo maanta joogaan waa kuwa maqan maaha waa iyagiiba ka wakiila iyagiiba sida xaqiiqadu tahay waa sida marka waa guddoomiyihii magaalada gobolka Togdheer iyo taliyihii qaybta booliska gobolka Togdheer dhammaan inta yalaasu waxa uu nagu macsuumay magaalada la yiraahdo balli beegsi oo uu yahay odaygiisii geelii buu qalay adhigii buu qalay xoolihii oo dhan buu keenay aanii baanu qubnay oo halkaa imika yaalla marka ilaahay mahadii ninkaa waa u mahadnaqaynaa iyo deegaankiisa iyo magaaladiisa iyo dhammaanteed mahadnaq gaaraanu siinaynaa waxaanaanu leenahay ha lagu ogaado ninkaasi inuu nabadgelyadii ka shaqaynayo oo u shaqaynayo deegaanka iyo nabadgelyada iyo dadweynaha iyo dawladda iyo Somaliland taas waa taa annagu waxaanu soo qabanay laba bilood baanu imika shaqada ku soo jiray aad iyo aad baanu ugu dhabaradaynay oo waxaanu ugu dhabaradaynay cid maanta dee wax noo sheeganayso odhanaysa waa taanu xoolaha ay siinay xagaa la marteen garan mayno sheegina mayno ciddii ilaahay noo diray ee gaar ahaana waa jirtaa laakiin dawladdii iyo shacabkii iyo ganacsatadii sidii halkaa Burco loogu kala dhaqaaqay maxaa haysaanana lama odhan nabadiina maantaanu soo gabagabaynay way dhan tahay inta ka hadhayna anagu kala hadhi mayno waxaanu leenahay ninkii ka hadhayow ee nagu eegayow maanta wallaahi way kaa sugaynaa halkiisa loogu taga taas waa taa inta ka hadhay waxaa halkan la isugu keenay 10 tuulo ujeedada la isugu keenay waxay ahayd ilaa nabadaynta hore u dhacday in dadkii la isdhex geliyo la walaaleeyo la turxaan saaro ilaahay mahadiisu aan bay noogu dhacday waxaanu kala xoggaal wareysanay 10ka tuulo haydharkoodii iyo odayaashoodii boqolkiiba 9 waxay noo sheegeen in nabadii la qaatay adduunyaanu joognaa qabyo lama waayo oo wax ka soo dhaca qabyo leeyin 9ka qabyadaana waxa diyaar ah inay qabyo tiraan maamulkii gobolka ciidankii booliiska odayaashii marka horeba loo igmada 10 xubnood ahaa waxaan leeyahay aad baa u mahadsantiin mar haddaa dhaqan geliseen nabadgelyadii aynu inta badan ku naaloonaynay inay suuro gasho inta yare hadhay waxba maaha wixii ka badnayd sidii loo soo qabyo tiray baatanna loo soo qabyo tiraya cidii cabanaysa cabatikeedii waanu dhegaysanay waanu weelaynay cid kastoo ku aadanna wax ka qabadkeeda ay leedahay haddii aanu buluus nahay wixii nagaga aadan xaq baanu u leenahay inaan wax ka qabanno oo ka jawaabno cabadka
guddida 10 xubnooda waxaan leeyahay halkaa bali samatar ee cabadkeedu soo noqnoqday gacanta hoos loo geliyo shirkan turxaan bixinta ah iyo soo gabagabeynta nabadii muddadaba la soo waday ay soo socotay muddo dheer bay soo qaadatay waqti dheer bay soo qaadatay dadaal badan baa lagu soo bixiyay dawladda iyo shicibba waqti bay qaadatay waxaan ugu horeyn doonayaa inaan halkan uga mahadnaqo 10 oday ee guddida ee lagu magacaabay shirkii ka dhacay Burco ee lagu soo gabagabeeyay ama lagu soo xiray colaadii ka dhacday deegaamadan 10 oday shaqo badan wanaagsan qiimo leh wax ku oola ayay qabteen intii ay xilka hayeen ama intii ay hawsha ku jireen waxaan kaloo u mahadnaqayaa Master Ismaaciil oo maanta halkan casuumad qurux badan loogu sameeyay waan leeyahay ilaahay ka jazaaysiiyo aad baad u mahadsan tahay waa oday nabadeed marka horeba nabadda nagala shaqayn jiray si wanaagsan nagala shaqayn jiray imakana ballan qaaday maanta halka ka ballan qaaday inuu ka shaqayn doono wixii harsan insha Allah taala waxa faraya heerarka maanta 10ka heer tuulo ee halkan la isugu keenay in wixii halka lagu wada hadlay ee la isla gartay ee lagu heshiiyay inay halka ka sii wadaan inay mar walba ka shaqeeyaan nabadgelyada oo ay uga shaqeeyaan si wax ku oola si wax tara si waarta nabadun bayna deeqda dadka qoryaha sitee shacabka horena waa loo sheegay arinta hore waa loo sheegay lama ogola shaalina kala nihin mana aqbali doono qof shacaba oo qori sita oo keynta la wareegay qof shacaba oo keynta la wareegay dambi weey qofkii lagu arkana waxay leedahay lagu qaaday wuxuu leeyahay ay lagu qaaday qodobka kale doonaya xasuusiya waxa weey waxa lagu heshiiyay qofka jabiya waxa lagu heshiiyay ee deegaan ku heshiiyay ee dadku ku heshiiyay qofka jabiya ee wax yeelaya imaka ba ogaada cid u liximayso loo liximayo 20 sano bandheera aan diran imaka wada maqla qofkii jabiya waxaas lagu heshiiyay ee dadkaas ku heshiiyay ee nabadda carshacarshay ee nabadda wax yeela talaaba laga qaadaya waa Siciid Cali Cismaan Xalays telefishinka caalamiga SK Cable TV magaalada Burco xarunta gobolka Togdheer